habeenkii daymada daawashada kalgacalka leh deeqlaysu siin jiray ويا حبله كعوذ مسير وديقا مارلي كرم ولدي يميد كسو حيكتيو متاكالو صاحب يالالكن وحمر عادة تي في مقال كلا يعني دين هناه عيوني قروح ayaa waxa loo dhigay arooskii ebid ugu shidnaa taasi oo keentay in gabdho badan oo ay ka maseeraan cayuuni qurux oo ah gabar caan ka ah social media gaar ahaan TikTok iyo Facebook ayaa waxa idiin baahinay in meherkeeda uu ahaa 200 garaan oo dahab iyo waliba xajka la geeyo laakiin waxba ka darneedba arooskii loo dhigay taasi oo Muqdisho gilgilay hadaba cayuuni qurux ayaa muddo waxay la aamusneed dadka qaarkiina ay ku fasireen inay qaban qaabo weyn ugu jirtay soo bandhigida xaajigeeda cusub iyo waliba sidii markaasi ay u dhigan lahayd aroos kala kacsan oo waliba laga sheekayo cayuuni qurux hal sano social media waa ay ka fariisatay intaas oo idin la waxa ay baadi goobaysay qofkii nolosha ay la qaybsan lahayd waliba ragga Soomaaliyeed shakhsiga ay ka xulan lahayd kullay waa ayna heshay gacan bir ay ku qabatay waxaad ka dareemaysaa sida quruxda badan ee arooska loogu alalaasay ciyaar dhaqameed iyo waliba si aan caadi ahayn ayaan arooskaasi looga soo wada qayb galay inkastoo isha ay gaar ku hayeen sida uu dhacay arooskii qaabka loo soo agaasimay Muqdisho ilaa iyo shalay waxa aad loo hadalhayaa arooska cayuuni qurux oo hadda gabdho badan oo Soomaaliyeed rajo u yeelaysa oo ku aadan in ay dhigato arooska cayuuni qurux qof waliba waa meesha uu isdhigay hal walba meesha isdhigtaa lagu gooracay Soomaalida ku mahmada hadaba arooskan ayaa noqonaya mid markaasi role model oo ah gabdho badan oo Soomaaliyeed oo hadda u diyaar garoobaya inay ka xuroobaan nolosha kelinimada oo ay waqti badan ku jireen guud ahaan dadkii ka soo qayb galay arooska ayaa waxay aad ugu riyaaqeen habsami u socodka munaasabada guurka oo cayuuni iyo waliba xaajigeeda ay u noqotay mid markaasi aad looga sheekayo isla markaana ay noqotay mid waqti iyo juhdi iyo dadaal lagu bixiyay dadkii guud ahaan ka soo qayb galay waxay aad isha ula raacayeen qaabkii uu ciyaarayeen iyo sida ay gacmaha isaga haysteen cayuuni waliba xaajigeeda oo ahayd mid markaasi xataa la soo abaabulay lana soo agaasimay isla markaana juhdi iyo dadaal lagu bixiyay sidii markaasi cadawga looga jebin lahaa sidoo kale xogaha la yaab kale oo arooskaasi cayuuni qurux ay dhigatay laga helay waxa kamid ah in gabar kamid ah gabdhihii goobjoogka ka ahaa arooskaasi ay fagaaraha lagu dhigay arooska cayuuni qurux ay ku suuxday laga yaabay gabdhaha qaarkood inay wax ku soo dagaan isla markaana ay qabaan waxyaabaha qaar oo gabdhaha lagu yaqaano laakiin dadka badankii ayaa ku fasiraya inay aad uga maseertay arooska kala kacsan oo cayuuni qurux ay Muqdisho ku dhiganaysay waxyaabaha kale oo cajiibka ah waxa kamid ah in dadka meesha isugu yimid ay aad u hadalhayeen sababaha cayuuni qurux ay u dhigata aroos heerkeeda intaas la eg yahay iyo sida gabdhaha qaarkood ay uga falcelinayaan ninka guursaday cayuuni qurux ayaa ka yimid dalka Mareykanka wana wiil dhalinyaro oo in muddo ku noolaa dalkaasi Mareykanka waana qurba joog Soomaaliyeed oo u soo diyaar garoobay inuu aroos fiican Muqdisho ugu dhigo gacalisadiisa cayuuni qurux oo hadda u noqotay mid markaasi aad looga hadlayo guud ahaan Soomaaliya idilkeeda iyo waliba dunida caalamka حتى social media هي aad u hadalhaya arooska cayuuni qurux oo noqday mid markaasi saameynteeda wadata cayuuni qurux iyo shakhsigan ayaa dadka qaarkood waxa ay ku fasireen isbarashadooda inay ahayd mid markaasi laabla kaca kadib markii cayuuni qurux ay social media kaga fariisatay arrimo been abuur ah oo laga faafiyay taasoo waalidkeeda ku qasbeen in ay social media isaga baxdo hal mar ay ka fariisatay social media kadibna waxa soo shacbaxay xiriirka iyo jaceylka iyo lamaanaha cusub ahaan waxay ahayd gabadh inta badan ku dadaasha asturnaanta waxaana la dhihi karaa waa lamaanaha qarniga maadaama ay dhigteen aroos meel fagaara ah waliba dadkii Soomaaliyeed ay ka qayb galeen aadna ay ugu bumbuuninayaan arooska cayuuni qurux ayaa dadka qaarkii waxa ay dhaheen waxay la aamusneed wax yar ma ah maadaama hadda ay soo bandhigtay wacdaro la yaab leh maadaama aroos weyn ay Muqdisho ku dhigatay inkastoo la yiraahdo aroos waxa ugu fiican uguna khayrka badan kan aadka u yar oo
weliba la fududeeyo. Ahay dad badan ayayse ka masiirsiinaysaa arrintan ay ku dhaqaaqday Cayuuni Qurux. Waan leenahay waxaa tahay gabar markaasi role model ama kudayasho mudan. Xamar Cadde TV waxay idin leeyihiin hore u socda kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano wada jiray nabadgala Allah hayow idinka yeel. وهبنك دايما دعوشة كالجعل كليه دغليسو سنجري ويا حبله كاودا مسير وديقا مارلي كرمونا اليمين كسو حكتيو متى كالوا لوا ويا حبله كاودا وهبنك دايما دعوشة كالجعل كليه دغليسو سنجري ويا حبله كاودا مسير وديقا مارلي كرمونا اليمين كسو حكتيو متى كالوا لوا ويا حبله كاودا مسير وديقا وأما هالألي مالي لغو فرحي مضني ومرواه محركودي دعاي milkaha gurkiyo arooska maamuuskiyo sharafta dhaqanka waxaad mulkideen dhankiina jacaylkii idin mideeyey markaad mariseen jidkiisa وأما هالألي مالي لغو فرحي مضني ومرواه محركودي دعاي ويا حبله كاودا مسير وديقا مارلي كرمونا اليمين كسو حكتيو متى كالوا لوا ويا حبله كاودا مسير وديقا
دبله قرب دبونك لدمي شرف رمتي حملها إقلها نتيا ودقي أروس لا بدقن له دين كداتيو يكدور سنو دب حلالبا بعاو قوري قاري دبله قرب دبونك لدمي شرف رمتي حملها إقلها نتيا ودقي أروس شرف بقلبه أبا مقالي دلي أرسنا بيقل أبا مقالي دلي أرسنا بيقل علي ديرانو وذا ديبستيو كتا درستا هذا شرف بقلبه أبا مقالي دلي xamraada TV aad naga daawanaysan saaxiibayaal hadii aad nagu cusubteen subscribe dhaha gambareelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan markaasi aan soo dhigno hadii aad hore inoo la joogteen madaxaad inoo saarantii saaxiibayaal dhaliil amaan bogaadin taliyo tusaale hadii aad inoo heesaan qaybta commentiga noogu reeba waan idin aqrin doonaa wanabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duco idin leh muuqaalkan kiis xigeenteena ku kulmi doona anagoo isku duun waxaanu idin kaga tageynaa sidaas nabadgelyo